بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال kusoo dhawaada warka saacada ee shaqada warkii.com ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa waxa uu maanta xarig uu ka jaray iskuulka degmada Shibis ee magaalada Muqdisho oo loo soo gabagabeeyay dayactirkii muddooyinka ugu dambeeyay ay ka wadeen maamulka gobolka Banaadir iskuulkan oo ka kooban 10 qol ayaa waxa lagu talagalay in si lacag la'aan ah wax loogu baro carruurta Soomaaliyeed ee ku nool degmada Shibis munaasabadii xariga looga jaray iskuulkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid tahay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan bulshada ku nool degmadaasi gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ugu horey munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in tahay tilaabo hore loo qaaday in carruurta Soomaaliyeed ee ku nool degmadaasi in loo furo iskuul si lacag la'aan ah wax loogu baro waxaan runtii aad u faraxsanahay markii ugu horeysay in aan ka qayb galay iskuul lacag la'aan ah oo loogu talagalay in ay ku bartaan carruurta Soomaaliyeed ee degmada Shibis oo gudoomiyaha gobolka uu xariga ka jaray waxay ii tahay farxad runtii sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed waxaa ku dhacay mugdi iyo indhala'aan iyo jahawareer mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in iskuulkan maanta la furay inuu dabooli doono baahiyaha ay carruurta Soomaaliyeed ay u qabaan inay helaan waxbarasho si lacag la'aan ah maanta in ay iskoolkii hoose ee Shibis qaybtiisii hoose in maanta aan furayno mashruucii danguud iskuulaadka iyo degmooyinka iyo MCA-jada degmooyinka lagu dhisahay mashruucani waxaa loogu talagalay waad ogtiin magaalada Muqdisho iskoolaadka dhan ee ka furan inta ugu badan waa lacag waad ogtiin ilmaha Soomaalida ama guryaha Soomaalida carruurta joogta familkiiba waxa way 7 ugu yaraan meeqa marka bixin karta $10 meeqa ka bixin karta way $10 iyo gaadiid meeqa ka bixin karta ilmahooda hadii la fiiriyo magaaladan iyo xaaladda dhaqaale ee wadanka u maraya shaqo la'aanta ka jirta macnaheedu waxa weeye boqolkiiba laba ilmaha Muqdisho iskool ma aada yani boqolkiiba laba ayaa ka aada ilmaha Muqdisho yani boqolkiiba 98 number u qalma ma aadan iskool weey iskuulka degmada Shibis ee loo soo gabagabeeyay dayactirka ayaa qayb ka mashruuci aada dugsiyada ee wadada dawladda